inta ay socdaan howlgallada dadka ayuu ugu bishaareyn jiray in shabaab laga saaray deegaano badan oo ay ku sugnaayeen wadada Kismaayo iyo Baraawe ayadana mar dhow la irto inay qaado ayaan rajaynaynaa. Allah u naxariistay waxa uu ahaa abaandulihii ciidanka xoogga dalka waxaana lagu xasuustaa dagaalada al-shabaab uu kula galay qaybo badan oo kamid ah dalka. Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan ayaa kamid ahaa dad ku dhintay weerar al-shabaab ay ku qaadeen hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho. Dhagabadan ayaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa geesi hogaamiye howlgalladii ugu adkaa ciidanka xoogga dalka. Haddana waxaan ku sheegayaa ciidamada qalabka sida wadada Jowhar Buula Bardo Beledweyne ayaduna mar dhow inay leyrta bixiso waa rajaynaya. tan saddexaad waxay noqon doontaa wadada Kismaayo iyo Baraawe ayadana mar dhow leyrta inay qaado ayaan rajaynaynaa. waxaan rajaynaynaa dawladda cusub dalka cusub iyo ummadda cusub oo dhammaantood wada cusub waxaan rajaynaynaa inaan dardar xoog leh gelino dawladuna iminka dardar xoog leh yay ku wada xaaladda waxayna ugu wada shacabka inay meel fiican gaarsiiso. Jeneraal Dhagabadan ayaa door weyn ku lahaa howlgalkii al-shabaab looga saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011. Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan waxa uu ku suntanaa inuu bixiyay erigii loogu magac diray jid iyo jihadiid kaas oo caan ku ahaa erebixinta uu sameeyay isla markaana bulshada ay si aad ah ugu riyaaqeen erebixinta uu sameeyay oo ugu magac diray al-shabaab. kooxaha sidii jihadiidka ee dalka iyo dadka iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada u geystay meeshaan anigu dadna uguma imaan meel ka horeysa yaan ku arkay qalabkooda oo yaala laakiin garoon la isticmaali jiray maahan. Abay garoonku waa garoon caalamiya waa garoon raydweyda waa garoon shuba waa garoon ciidan buu ahaa marka deegaadna kuma yaalo waxa weeye asaga garoonka laftigiisa wuxuu leeyahay 4 kilomitir weeye oo dhiriga. magaalooyin waaweyn ayuu sabab u ahaa in laga saaro al-shabaab sida Jowhar, Baraawe, Beledweyne iyo qaybo kale oo kamid ah dalka. waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa geesi ku suntan magaca Soomaaliyeed iyadoo ummadda Soomaaliyeed ay si weyn uga naxeen geeridii ku timid Allah u naxariistay Jeneraal Dhagabadan koodii bishii November sanadkii 2015 weerar xilli hore oo subaxa al-shabaab ay ku qaadeen hotel Saxafi ayuu ku dhintay marxuumka waxaana lagu aasay gobolka Galgaduud oo deegaan ahaan uu ka soo jeeday.